deegaanka Jasiira. waa deegaan xeebeed baaxad leh oo Muqdisho ka xiga dhinaca koonfur bari. celcelis ahaanna waxaa ku nool dhowr boqol oo qof. taariikhda guud ahaan uu leeyahay deegaankan iyo odayga ku aasan meeshan ee abka ab laga soo gaaray deegaankan. wax soo saarka deegaanka iyo waxbarashada maasha Allah meesha hadda aan joogno waa iskuulkii ilmaha hoose dhexe dugsi sare waxaan leenahay MCH caafimaad waa leenahay waxaan ugu yaalo college ilmaha agoonta oo wiilasha college ilmaha agoonta gabdhaha. markii ugu horeysay ee la soo dago waxay ahayd 957 sano ka hor. waxaa sheegaysa taariikh ay iska dhaxleen dad qarniyo kala dambeeyay ku noolaa. deegaankan wuxuu jiraa qarni maxay too 900 qarni iyo ka badan waa 957 sano ayuu jiraa deegaankan. wuxuu alla ku manaystay deegaankan kheyraad dabiici ah waxayna nolosha dadkiisu ku tiirsan tahay wax soo saarka badda, beeraha, xoolaha iyo cusbada. deegaanku wuxuu ku tiirsan yahay dhinaca dhaqaalaha badda. dadka meesha jooga waa dad kalluumaysataa, waa dad maanta muruqmaal ah, waa dad xalaal quudata ah. sheekh ay ka soo farcameen bulshada ugu badan ee deegaankan ayaa ku aasan jabal badda dhexdeeda ah. wuxuuna qabrigiisu ka mid yahay astaamaha gaarka ah ee weli nool. awowgeyn xaaji sheekh maxamed xasan asiga oo ka yimid dhulalkan Maka al-Mukarrama Sacuudiga ka yimid halkan wuxuu u yimid diin asoo wada ayuu yimid wuxuuna ka tirsanaa odayaashii la dhihi jiray 4 rukun ama 4 Cusmaan haddii aad maqasheen iyo 4 rukun isku hal waaye. deegaanka Jasiira marka xeebta laga soo tago meesha ugu horeysa ee laga galo waa halakan. dhinacan sidaad u jeedaan daawadayaal waxaa ku yaala masjid ka mid ah masaajidda lagu cibaadeysta ee deegaankan. xaafad waxaa jirta dhinaca buurta saaran oo aad u jeedaan. marka waxaan rabnaa hadda inaan magaalada aan guda galno oo kolley aan idinla wadaagno muuqaalo kale oo iyaguna ka mid ah magaalada. markii ugu dambeysay deegaanka Jasiira wuxuu ka bilaabanayay xalane garoonka diyaaradaha ee aadan cadde xalana ayuu ka soo bilaabanaya deegaanka Jasiira wuxuuna ku eg yahay dhanaane. intaas dhanaane maxay too meel ka sokayso oo garab cadde la yiraahdo oo dhanaane saaran ayuu ku eg yahay. marka deegaankaas sidaas u ballaaran waxaa degan reer Jasiira guud ahaan ummad badanaa la degan reer Jasiira oo ay soo dhaweeyeen oo walaalahood ah oo haddii ilaahay idmo deegaanka nabad ayaa lagu qabaa. inta deganna deegaanka nabad ayay ku wada nool yihiin. wuxuu leeyahay deegaanka wax soo saar badan uu leeyahay sida xeebta dheer lagu qiyaasayo 40 kilomitir ka badan ayuu leeyahay. deegaan baraaruhu leeyahay. dhanka kalluumaysiga ayaa looga faa'iideysan karaa, dhanka dalxiiska looga faa'iideysan karaa, dhanka haddii ilaahay ku roon yahay beeruu leeyahay. wuxuu leeyahay beer cusbada xamar laga cuno Soomaaliya laga cuno waxa laga soo saaraa Jasiira. marsada deegaanka Jasiira waxaa ka baxa dooyin yaryar oo sida dad ku safraya badda. anigoo ah Awees Cumar Maxamed oo wato doontan waxaan ka shaqeynaa Marko iyo Jasiiro inta u dhaxaysa ka shaqeynaa. marka saas darteedii
ayaa hadda maanta idaacadda noo timid. cabsida amni ee ka jirta jidka isku xidha muqdisho iyo marka ayaa ku qasbay dad badan inay xeebtan ka safraan, kuwo kalena waxay u noqotay suuq cusub. jeedin inaan markaan u socdo oo xaafadeeda aan rabo mar walbana gaariyaalkii wixii dib aan ku wada qabno safarkii maay ay naqatay mar walba safarkeena dib iyo dhibaato bad in la wada maro maalin walba doona ku gudoomi karto wax walba ku noqon kartaa taariiftii aan ka ordi jirnaa hadda taariiftii kala sii galoona dibku waa meeshii ala taasaynas. dadkan hadda waxay ku sii jeedaan daawadayaal degmada marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose, waxaana laashkan hadda uu ka qaaday deegaankan Jasiira oo ay ka baxaan doonyaha Muqdisho iyo marka iskaga kala goosha socdaalka dhinaca badda ah. halkii qof waxaa lagu qaaday sida uu ii sheegay mid ka mid ah dareewalada doonyaha $20 Mareykanka ah. deegaankan waxa uu ka mid ahaa deegaanada ugu wax soo saarka badan xilligii dawladdii dhexe, iyadoo ay ka dhisnaayeen warshado fara badan sida tii aargoosatada looga dhoofin jiray dibadda, warshadii doomaha, tii korontada laga dhaliyo dabaysha oo iyaduna deegaanka hoos imaan jirtay. Jasiira wuxuu ka mid yahay raadadka taariikheed ee weli nool.